uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ay weheliyaan wasiirada biyaha Xuseen Axmed Cabdille wasiiru dawlaha nabadeynta iyo horumarinta gobolada Bari Cali Maxamed Axmed Cali Sandulle wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Cabdilaahi maxamed daahir cukuse iyo taliyaha ciidanka qaranka General Ismaaciil Shaqale oo habeenkii xalay ku dhaxay tuulada Beerweys oo xarunta Boqor Cismaan Buurmadow ayaa saaka subaxnimadii safar shaqo ku tagay degmada Fiqifuliye ee gobolka Sanaag oo 90 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Ceerigabo wada hadallo dhex maray xukuumadda iyo waxgaradka madax dhaqameedka deegaanku waxa uu keenay afgarad iyo aaminaad si laab xaaran oo walaaltinimo leh la isugu afkartay in loo gudbo qarannimo taasoo keentay in beesha deegaanka Fiqifuliye ay si kalsooni iyo walaaltinimo leh ugu wareejisay ciidan beeleed tiradoodu u dhaxayso 500 ilaa 700 oo askari iyo 13 kamida gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ee loo yaqaan tiknikada kuwaasoo ay markii hore ka garab dagaalami jiray kooxda Khaatumo waxa kale oo goobtaasi hadal kooban ka soo jeediyay Garaad Cabdilaahi Maxamed Guuleed oo isagu ku hadlayay madaxa waxa kale oo isna goobtaasi hadal ka soo jeediyay Garaad Cabdilaahi Maxamed Guuleed oo ku hadlayay sida aad ogtahay horta dalku wuxuu ku jiray Soomaaliya burbur beelo iyo inta maamulada intii wixii ka qayb galay maahe waana maalintii koobaad ee deegaankan koonfurta Sanaag gobolka Sanaag ama beeshatan halka ciidankan iyo nabadgelyadan iyo heshiiska Soomaaliland kula gashay waa maalintii koobaad dad ka shaqeyn jiray anigoo hore uga shaqeyn jiray laakiin markii aan aragnay wixii dadkii inaan ku qanacsaneen ayaanu dadkii kaga mid noqonay waa maalintii koobaad ay la yeelato heshiis noocan oo kale oo official ah oo ku biirto maamulka marka wax markii hore dagaalkii sokeeye ay dawladii hore wixii laga tagay hubabkii kamida markii dambe dagaalada sokeeye dalka iyo fowdo ismaamul beelood ay noqoto hub iyadu kororsatay oo iibsatay saas weey waa wax beeshu iska leeyahay waxa kale oo goobtaasi hadal kooban ka soo jeediyay Garaad Cabdilaahi Maxamed Guuleed oo isagu ku hadlayay madaxa laga yaabaa dad badan inay aanay u cuntamin oo maaragtay bisayl inta la eg aanay gaadhin laakiin haddana waxaan leenahay nabadgelyadu iyo horumarku iyo wada hadalku waa soo dhitiyaa runtii arrintaasi waa guul weyn baan oran karaa oo la gaadhay Boqor Cismaan Buurmadow oo kamid ah madax dhaqameedada deegaanka si aad iyo itaal ahna uga shaqeeyay isu soo dhaweynta labada dhinac ayaa isna halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay waqtiga dheer ku soo bixiyay inay dadkooda iyo dalkooda iyo deegaankooda ay horumarintiisa halkan u yimaadaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayaa Garaad Cabdilaahi iyo Chief Caaqilada iyo Cuqaasha maantood ku dheeraaday muhiimadda ay qaranka iyo shacbiga u leedahay isafgaradkan maanta la gaadhay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب آد وحن نقول فرحسنا رنتي ما أنت كلن كان نبادات دجان كان لقى فلينيو يعيد ماذا لقرمينيو هل كمان أنت نقول نمي آدي آد بنقول فرحسنا هي أنتي كشقيسين آدي آد بنقول ما هاد علينا أنا قلاش قيسي وقت دير بالله هري تعب بدن بالله هري إن بدن بحريري من ينو لو ده حريري ما أنت هدي أي رمودي آدي آد بنو جرادك أضياشة يرجع كله وحوي إن جربات كشقيبة آدي آد بنو وقوم هاد علينا ciidamadan la qarameeyay ayaa noqon doona cudud luxdan oo u soo hoyatay guud ahaan qarannimada iyo ammaanka Soomaaliland waxay wax weyn ka tari doontaan nabadda ammaanka isu socodka iyo horumarka deegaanka iyo himilada shacbiga Soomaaliland marka la isku soo xooriyay jawigii maanta ee degmada Fiqifuliye ayaa ku dhamaaday gacal kala maqnaan jiray iyo Galbeed Olala